si fiican u dhagayso qisadan. waxaa jirtay gabar taajirad ah maalmaha ka mid ah waxay u baxday dhanka suuqa iyadoo rabtay inay hilib soo iibsato. wax yar kadib waxay soo gaadhay kawaanlihii iyo meeshii hilibka lagu iibinayey. kadib markii loo diyaariyey intii ay dalbatay, waxaa mehraddii hilibka soo gashay gabadh kale, se gabadhu waa mid aad u faqiira. markaas gabadhii faqiiradda ahayd waxay ka dalbatay hiliblihii inuu ka iibiyo lafaha haraadiga ah si ay xoogaa maraqa ooga saarto ubadkeeda. waxaa arrintaa ka damqaday gabadhii kale ee taajiradda ahayd, kadibna waxay si qarsoodi ah ooga codsatay ninkii kawaanlaha ahaa inuu gabadhan siiyo isla intii uu iyada u diyaariyey oo kale, welina iyadoo u sheegtay inuusan ogaysiin gabadha inay iyadu tahay ta u diyaarisay adeeggan. u qari oo u dhiib ayay ku tidhi adigoon dareensiin inaad beddeshay dalabkeedii. kadib markii uu u diyaariyey hilibkii ayuu u dhiibay gabadhii danyarta ahayd. markaasay tidhi kani ma ahan dalabkaygii, miyaadan imaqlin? anigu keliyaata waxaan kaa dalbaday adeeg aad u raqiisa, intanna aad ay qaali u tahay. markaas ayuu bilaabay ninkii kawaanlaha ahaa inuu gabadhii ku qanciyo tani inay tahay deeq ilaahay uu siiyey, cidna aanay ugu mana sheeganaynin. wadahadal dheer kadib way aqbashay adeeggii, kadibna waxay la aaday gurigeedii iyo xaggii carruurteeda. isla markay gabadhii baxday ay aad u faraxday gabadhii taajiradda ahayd, waxayna ka dalbatay ninkii kawaanlaha ahaa inuu u sheego qiimaha dhammaan labadii adeeguu u diyaariyey, keedii iyo kii gabadhii danyarta ahayd ay qaadatayba. markaas ayuu aad oola yaabay ninkii gabadhan deeqsinimadeeda, haddana waxaa ka sii yaabiyey ikhlaaskeeda iyo siday u qarsanayso sadaqadeeda. markaas ayuu ninkii gabadhii ka codsaday inay bixiso qiimaha adeeggeedii oo keliyaata. way ka diidday waxayna ku adkaysatay inay iyadu bixiso qiimaha labada adeegba. wadahadal badan kadib wuxuu ka codsaday inuu asagana khayrka ay wax ka wadaajiso uu la qaybsado deeqda iyo sadaqada.